الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. gabar muslimad ahayd oo aad u qurux badan ayaa guurkeeda ku xigay shuruudo ah inay heshaa wiil muslima sanadka oo dhan sooma quraankii maalin kasta khatima ama dhameeya habeenkii 3 meelood 2 meel salaatuul u taagan. wiilal badan oo muslimiin ah ayaa hamiyay oo u hanqaltaagay guurkeeda, laakiin waxay canuufta dib u laqeen markay maqleen shuruuda gabadha muslimada ah ee Allah qalbigeeda iimaanka ka buuxiyay wadato, waxayna garwaaqsaday inaysan buuxin karin shuruudahaasi. waxaase wiilashii ka soo dhaxbaxay nin rag ah oo yiri shuruudahaas oo dhan aniga ayaa buuxin kara ee gabadha ha laygu daro. wuxuuna wiilkii qaadigii islaamka ka hor qiray inuu guursanayo gabadhaasi isagoo buuxinaya shuruudihii uu kula ballamay. wiilkii iyo gabartii waxay isku meersadeen qaadigii islaamkii wayna aqal galeen. kadib wiilkii habeenkii koowaad salaatuul uma kicin. maalintii sidii ballantahay quraanka inuu dhameeyo iska dhaafay xitaa kitaabkii ma balrabin, mana soomin oo cunto ayuu maalintii oo dhan daldalayay. gabadha way u cudurdaatay iyadoo ka xun, laakiin inuusan ballantii ka soo bixin ayay waqti siisay isbuuc ah si uu ballantii iskaga bedelo, laakiin ninkii wax isbedel ah ma samaynin. gabadhii ma ahayn gabar si qiimo daro ah loogu guursaday oo la xaday, waxay ahayd gabar si sharafa lagu guursaday ee masaafo laguma guursan. waalidkeedii laga doontay qaadigii islaamkiina meheriyey meel ay u noqoto leh haddii qalad laga galo iyo haddii ku qanacsan la'aan ay timaadaba intaba meel ay u laabato leh. waxay go'aansatay inay dacwooto oo qaadigii u tagto iyadoo ka dacwoonayso ninkani wuxuu ku sameeyey iyo ballanka bixii uu sameeyey iyo inuusan fulin wixii lagu ballamay oo been uu sheegay. ninkii waa loo yeeray waxaana lagu yiri eedaynta ay lagu soo jeediyey maxaad isku difaacaysaa. wuxuu dhahay anigu ballantii aan qaaday waan fuliyey oo maalintii oo dhan waan soomanaa, habeenkii oo dhanna waan u taagnaa salaatuul, quraankana waan akhriyaa oo maalintii mar un ayaan khatimaa. iimaankii ayaa ku yiri noo kala qaad, marka hore qaabkee u soomtaa maalin kasta noo sheeg, leanna xaaskaagu waxay noo sheegtay inaadan soomin maalintii cunto cuntaahay. ninka ayaa yiri xaaskayga run ayay sheegtay oo cunto maalin walba waan cunaa, laakiin bisha Ramadaan markaan soomo ayaan ku daraa dhexda wadac. marka anigu waxaan cunay ayaan haddana waxaan leeyahay ajirkii qof sooman oo kaleeto. waa tii uu nabigeena yiri sallallahu calayhi wasallam, qofkii sooma bisha soon raacsiya lexdii wadac wuxuu u dhigmaa qof sanadkii dhan soomay. iimaankii ayaa ku yiri waan gartay habeenkii sidee u dukataa qiyaamuleylka, xaaskaagu waxay noo sheegtay inaa hurdid oo aadan kicin. ninkii ayaa ku jawaabay run ayay xaaskayga sheegtay, waan hurdaa habeenkii oo dhan, laakiin waxaan leeyahay ajarka qof habeenkii oo dhan soo jeeda oo salaatuul u taagan. sababtoo ah salaada cishaha iyo salaada subax ayaan jamaaca ku dukadaa. xadiiska nabiga ayuu ahaa calayhi salaatu wasalaam, qofkii ku dukadaa salaada cishaha iyo salaada subax jamaaco wuxuu la mid yahay habeenkii oo dhan asigoo qiyaamuleyl u taagnaa oo kaleeto. qaadigii ayaa dhahay tan saddexaad noo gudbi, quraanka sidee u akhrisaa. xaaskaagu waxay noo sheegtay inaadan quraanka akhrin. wiilkii ayaa dhahay waa runteed oo ma aysan i arag anigoo quraan akhrinayo, laakiin aniga maalin kasto waxaan akhriyaa 3 jeer suuratul ikhlaas ama qulwala. nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa dhahay hal qulwala wuxuu u dhigmaa 3 meelood meel quraanka ka mid ah. marka 3 mar ayaan akhriyaa, quraanka oo dhan ayuu u dhignaa. qaadigii islaamka wuxuu xugmiyey ninkii inuu buuxiyey shuruudihii oo la gala xaaskiisii markuu guursaday, wuxuuna ku amray gabadhii muslimada ahayd inay gurigeeda ku noqoto. maasha allah, wuxuu ahaa wiil dhisan oo nadiif ah, akhlaaqna leh oo alla ka cabsi badan. wuxuu buuxiyey dhammaan shuruudihii oo la ballamay. yeesan dhaqan soomaaliyey afkuun baa gabadha badan looga qaadaa, waxna looma qabto ee gabdhaha ballankaa la gashay waa inaa oofisaa. arrinkaasaa diin oo wanaagsan. wasala allahu calaa nabiyina محمد وعلى آله وصحبه. محمد السلام.